ognahay inuu ka talinayay General Gabre oo xafiiska ku lahaa madaxtooyada dhexdeed waa arrin nasiib darro ay ku ahayd waxaan kaloon ognahay doorashadii 16ka wixii cadaada ka dhacay wixii baydhaba ka dhacay wixii jowhar ka dhacay iyo silici iyo boobkii dadka Soomaaliyeed loo geystay oo boogtooda ay wali qoyan tahay oo aysan raysan inay maanta cusbeeyaan boogtaas ay xanuujiyaan waa arrin sharaf dhac ku ah ummadda Soomaaliyeed intaas kadib waxaan ognahay kale ra'iisul wasaaraha xilka laga qaado muddo 2 bilood ka hor inuu maanta ka mid yahay raga walaalaheena ee ku shiraya Jazeera waxaan xasuusanaa inuu 6 saac maalinimo nin waayeel ah ee ahaa gudoomiyihii baarlamaanka uu shaatiga ka baxshay iyadoo sharciga loo maartay marin waxaan sidoo kale xasuusanaa dad Soomaaliyeed in guryahooda loogu dhacay ee la dilay waxaan xasuusanaa 3 sano iyo 6 bilood in xamar umusha aan maartay la geey karin isbitaalada meydkan aan la aasi karin intaas oo dhiba oo hormood u ahaa oo dawladdan uu hormoodka u ahaa kamid ahayd qowlihii ay qabatay iyo falxumadii ay samaysay inuu maanta yiraahdo hal baan u raadinayaa dalka oo doorasho la boobaya oo ana wax saxay waxay ku tahay nasiib darro xumadaas ragii falkiyay inay maanta leeyihiin Soomaaliyan u tureynaa iyo doorasho xalaal ahaan rabnaa iyo anaga wax wanaaga sameynayna ayaan darro waxaa nasiib darro ah oo dadka Soomaaliyeed ku ah dhaawac in xildhibaano iyo dad dagaal oogayaal ahaa ee 20 sano ee la soo dhaafay hormood u ahaa burburkii iyo dhibaatadii ka dhacay dalkan oo xildhibaanada aan ognahay qaarkood maanta Jazeera ku shiraya ay ku soo boobeen agabkii dawladda gaadiidkii hubkii dhaqaalihii xildhibaanimada ay maanta haystaan oo xasaanada ku haystaan beeshooda fiirinayso ooyis dhaqankii ay xoogeen dumarkii ay maartay musqulaha ku xireen inay maanta leeyihiin idaacadaha ka leeyihiin doorashadii la kufsanaya waa ayaan darro waxaan u sheegaynaa dadka dhibaatada dalka u geystay taariikhda waxa loo qoraa in mustaqbalka la wanaajiyo maanta Afrikadii dhibkan martay dadkii dagaal oogayaasha maxkamadaha la saaraya waxa lagu xukumayaa caalamka meel kasto ay tageen waxa maanta ugu dambeysay maartay Congo Dizair yaa lagu xukumay rag dagaal oogayaasha kamid ahaa inagana senataro iyo xildhibaanay noo yihiin ummadda Soomaaliyeed waaba u bariyay waxayna leedahay ma doonayno inaan mar dambe xilka siiyay dan Soomaaliyeed dan diin dan dal looguma shirayo meeshaasi aniga la iga qaatay xilkayga aan soo qaato farmaajanaha leegeeyo ceeriinkan aan wax ku qaybsano oo aan xildhibaan nabad maartay hal galo doorasho waayo ma ogiye dan Soomaaliyeed meesha kama socoto waxaan leenahay la inka yeeli maayo hadaad isku kalsoon tihiin beelaha ayaa doorashooyinka maartay hormood u ah gudiga doorashooyinku wax buu sameeynaya ergada waxa soo qoraya ergada dhaqankiina iyo dadka ergooyinka hor istaaga